السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليه سوري رواده كسوري رواده channelka haddaa cusub tahay subscribe ka taa meesha hoose guduudaan kusoo biira videogaan idinla shargareynayo DIY waaye DIY-gaan idinla shargareynayo aadka u qurux badan geedkaanayto secretkiisa haddaan idiin sheego waa naxaysiin bad meeqa ka bixin haddaad suuqa aadiin let's think about it $20 $30 okay picture frame waaye saa ujeediin gadaashiisa dambe waa pictureka darbiga lagu dhajisto waaye waxyaalo kale waa u isticmaali kartaa insha allah DIY kale waa kaas oo idinla sheergareyn doonaa mar kale laakiin hadda maanta waxaan rabaa idinla sheergareeya geedkan traygan yarka ah trayganet waxa waaye ama miiska tableka oo wax lagu cunaa ku sharax kartaa ama miis kaleeto ama whatever areada jeceshaa ku sharaxan kartaa waxaa rabtaa kor saaran kartaa ma aha geed wax lagu qaadqaadi karo laakiinse waa geed aad meelaha ku sharaxi kartid lugaha yaryariiska watay waxaasoo dhan waa idin tusinaya insha allah so DIY-gaan bilaabeynaa geedkan inta ujeedin waxa waaye geedka dhalaalka waaye waa warqad weyn waaye wax kastaa ku samaysan kartaa alaabo badan kuu qaban karaa geedahan inta saa ujeediin dhalaalka leh saddexda kalar wuu ku yimaadaa $25 waaye dollarama haddaa reer Canada tahay waa taqaanaa dollarama kii kalena $3 ahaa dukaankaas ilaa iyo $4 waxyaalo qurux badan oo fiican u hayaa laakiinse ma laga hela alaabtaan oo kale ka waran alaabtaan oo kale oo nooc kala taalo oo saas aan qurux badnayn run ahaantii geedkan $2 ah waa ujeediin asaga naftirkiisa wuu fara badan yahay projectyo badan uu qabanayaa geedkan waa E6000 waa glue waaye oo aad iyo aad faraha isugu kaa dhajin karo markiiba iska tirtirtid waaye markiiba iska nadiifisid geedkan kale waa hot glue gun faruhu kaaga gubaya laakiinse waa is okay isla markii haddaa faraha istaataabsiisid wuu kaa tirtirmayaa so bacyaashaan ka furfureynaa waxyaalaha kale aan idinla sheergareynin aad meesha ku arkeen waxa waaye pinkaas aan kaga soo jiidi doono maqasa isticmaali kartaa ama geedka waa jewelry makerka geedkiisa waa geedkan kaga soo jiidi doono hadhow muraayadaha dhanka saar geedahaneta geesaha ku dhadhegan oo celinayay picture frameka gadaashiisa waan ka wada fujinayaa laakiinse waxaan isdhahaya labadaas geesaha ku daa laakiin markaa saas u laa waxaan arkin uu ka muuqanayo so ayaga naftirkooda waan ka taqluusaya so glue waxaan marinaya waxaa meesha muraayadda aan ku celin doono because waxaan rabaa inay muraayadda joogsato aysan soo dhaqaaqin so gluegan mariyay wuxuu ahaa E6000ka iyo hot gluegan geesaha kaga marmariyay sidoo isla markiiba ugu dhago E6000ka isla markiiba kuma dhagaa waxa waaye haddaad ku dhajisid waa inaad sugtaa at least 12 hours okay so waan ujeedii waxaan ka fujinayaa birihii kaleeto aan isdhahayay ku dhaji laakiin madowgood foolxumu ka noqday so waan ka saaray so hadda waxaan sameynayaa frameka rabaa inaan isku dhajiyo so gluega waxaa mariyay E6000kii kow and then hot gluegankia mariyay hot gluega isla markii ku dhajinayno that's why aan ugu dhajinaa because projectigana iska dhameeyaan rabaa sida ugu dhaqsaha badan so wixii dhalaalka ahaa ayaan ku shubayaa except goldiga waa reebanayaa project kale aan ku shaqeynayay goldiga but I wish inaan ku dari lahaa next time video kale arki doontiin insha allah gluega ku dari doono gold iyo silver ka samaysan ayaan ku dari doonaa kulligood macal cadaanka qurux wuu soo badinayaa wuu ku badinayaa so ujeedii muraayadii kaleetaan kor saaray so muraayada ka hooseyso muraayad kalean kor kaga saaray maxaa marka meesha ka muuqdo alaabtii dhan ujeedaa so haddaa rabtid hadda framekan saarayaa waxaan tusinaya cadaankaas warqadaas cadan ku din kartaa any color ka dhigi kartaa hoos waxaa rabtaa ku dhajin kartaa laakiin ani dhalaalkan ku dhajinayaa so geedkanita ku dhajinaya meesha si usii dhalaasho qurux u noqoto oo laisweydiiyo see ku samaysay laakiin warqadaas cadba waa ku dayn kartaa haddaa rabtidna color aad marin kartaa warqadaas and then waa gelin kartaa ama haddaa rabtid waxyaalo kala gashan kartaa waxaa jecesha adiga ama sidii saasa ku daynaysaa clearka oo ujeedaa luga kaliya u yeeli kartaa and then miiska meesha saaris waa laga arkaya so markaa ka fujinaysid waxaa laga yaaba inuu kaa yeesho laalaab it's okay waaye wax arkaya iska yar anyways because dhalaalkaas kala kor saaran si dhaqso badana u sameynaya laakiin haddii projectigan ay tahay project aad sii gadaysay ama wax kale qolo kale aad sii siinaysid waa inaad si tartiib ahaad careful samaysaa but aniga si dhaqsaha u sameynayay so ujeedin hadda meeshii picture framekii gadaale ayaan ku celinayaa sidiisa arba inaan ka dhigo adeeg waan ku celiyey hadda waxaan sameynaynaa dhalaal waa isku dhajinay labadii frame wixii oo dhan wixii sharaxaadii hadda rabnaa sameyno sharaxaadan waxa waaye waa ujeediin laba kala nooca haystaa $2 aan kasoo bixiyey way badan yihiin projectyo badan aan ku sameyn kartaa so ujeedaa laba kala style waaye okay so kaa jeceshaa ku sameysanaysaa styleka adiga jeceshahay but waxaan jeclaaday kan kaleeto inaan ku sameeyo oo squareka ku badan yahay because siba wuxuu ahaa designka I don't know square so waxaan isticmaalayaa glueganka waxa waaye dhaqso isla markii ku dhajinayaa
run ahaantii kama soo foqo just unless la riixriixo oo ama heatka hadduu guriga heatka ku badan yahay of course uu soo foqaya dan waxaa fiican inaad isticmaashid E6000ka iyo hot glue-ga soo ujeedaa sida quruxda badan kusoo baxay kulli aan ku wada wareejinayaa sidaan u sameynayan waa arki doontiin insha allah so walaalahay haddaad tahay qof jecel inuu wax gacanta ku samaysto waa samaysan kartaa ka faa'iideyso oo soo gada alaabahaneeto wax badanay kuu oolayaan run ahaantii waxaan rabaa inaan advice kuga siiyo dollar storeka way gadaan yes but hot glue-ga glue-ganka iyo hot glue-ga stickaba waxaa kasoo gadataa Michaels anaga Michaels aan dhahnaa craft store-ka maxaa yeelay wuxuu hayaa 50% off coupon inkastoo hadda hot glue-ga ay ka dhigeen everyday value meankeeda waxa waaye discount laguma siinayo but glue sticker weli waa jiraa so hot glue-ga glue ganka waxaa kasoo gadan kartaa dollar store-ka sticker la gelgelinayo iyagoo fara badan 100 xabo ku jirto $12 gadaan 50% off markay qabaan $6 camal kasoo bixinsa laakiin wax badan uu ku oolayaa shaqooyin badan aa ku qabsan kartaa saa ujeediin geedihii dhalaalkaaneta aan fujinayo geedkaaneta waxa waaye geedihii Christmaska oo ay ku raalaadiyaan geedaha u malaynaya dollar store yaaleen video kala jira $25 so saa ujeediin hot glue-ga isticmaalaya kaliya hot glue-gi meesha duleelka waan ka jibiyay geedkii oo laalaadinaya because waxa u baahan tahay lugo anything aan lugaha ku dhajisan kartaa mar waxaan isticmaalay geedahaaneta oo la leeyahay napkin rings oo lagu gado dollar tree-ga aad ay u qurux badan yihiin kuwaas naftigooda projecto badan aan ku isticmaalay unique hooye channelkaas kala ka heli kartaa videoyaashaas linkiga hoosa soo dhigayo channelkaas u raacdid ama craft videoyaasha projectyadaas aan qabtaan soo dhigaya insha allah linkiga meesha hoose ka fiiri oo ka raac hadduu rabbi idmo saa ujeediin glue-gan ka badinayaa sidii uu qabsado uu yeesho meel fadhi ah qaarkood waxay markaan ka jaray si fiican baan ugu jariso waan sii jarjaraa waan sii toostoosinaya because waxaa la rabaa spacekaas oo hoolowga ah inuu si fiican ugu fariisto wax arkayana ma laha but hot glue-ga isla markiiba way qalalaysaa so waa ina cabaar ku haysaa meesha u rabtid so walaaleysaa ujeediin sida quruxda badan uu kusoo baxay wuu adkaaday markaan labada geesaha ka geliyo waa ujeedan suu xoogaa yar u jilicsanaa laakiin markiisi kaleeto wuu adkaaday markaan labada kaloo dhexda ah aan ka geliyey so walaaley waa ujeediin sida quruxda badan uu kusoo baxay madiida leed hadda geedka inaan guriga ku sharxato waa maya adiga gacantaada ku samaysatid sooma farax lahayn haddii adiga aad gacantaada ku samaysatid soo fiiri inaad samaysan kartid waxyaalahan oo kaleeto ka faa'iideyso yaas qarasha kaa galayo alaabaha lagu sameeyo aad soo gadanaysid laakiin waxaa ka fikirtaa waxyaalaha faraha badan aad samayn kartid haddii aad tahay xataa qof raba inuu sii gado oo ka faa'iideysto business ka sameeyo waa samayn kartaa gabdhaha walaalaha saaxiibadaada asxaabtooda kale markay arkaan definitely waxay leeyihiin ana xabadaa rabaa please ii sameey of course cost la yimaado asxaabta waxay iska jeceshahay mararka qaarkood free stuff so asxaab waxaa jiro aanan ogolayn free stuff oo kaa gadanayo obviously qarashkaa kasoo bixisay valuegooda inay kuu so saa ujeediin sida quruxda badan uu kusoo baxay geedkii saa rabtaa u sharaxan kartaa sida rabtidaad waxaa rabtidaa kor saaran kartaa just a dining table-ka sometimes waxaa iska jirto inuu miiska iska qaawan yahay so waxaa saaratid miiska ku sharaxdid oo yuu noqonayaa basekiisii so waxaan rajeynayaa in uu ku dhiirangeliya videoganeto please haddii aad ka heshay ha iloobin inaad thumbs up subscribe haddaa cusub tahay sii share garay insha allah comment igu soo qor oo ila soo socodsii sidaad uga heshay videoganeto hadduu ku cajibiyo insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر وتهتف باسمك الدنيا